الرحمن الرحيم waxaan ugu hambalyeynaa dhammaan ummadda muslimiinta ee ummadda Soomaaliyeed munaasabada maanta ay maalin ciid Jimco ah waxaan sidoo kale halkan jeclahay inaan hambalyo uga diro shacabka reer Puntland xubnahooda baarlamaanka ay u doorteen oo maanta doorashadii ugu horeeyay sameeyay waxaan ku faraxsanahay inay si habsami leh u dhacday xubnihii baarlamaankana waajibaadkooda si wanaagsan u guteen iyadoo aysan codadkii ay u soo wakiisheen waxna ka xumayn wax isdabamaraya iyo wareerna uu ka dhicin sida wanaagsan ay u guteen waajibkii ummadooda u soo dooratay waan uga hambalyeynayaa sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa gudoomiyaha cusub gudoomiye Cabdixakiin oo ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha hogaamin doona baarlamaanka Puntland 5 sano ee soo socota arrintaas waxay calaamad u tahay biseelka reer Puntland iyo horumarka ay rajeynayaan iyo sida ay u dooranayaan dadka ay ku tuhumayaan inay hoggaanka 5 sano soo socota ay wadi doonaan waxaan sidoo kale u rajeynayaa xubnaha baarlamaanka doorashooyinka u haray inay si habsami leh u dhacaan si wanaagsan u dhacaan oo ay noqoto wixii dadku ka rajeynayaan oo ka filayay inay isbedel wanaagsan oo dalkan iyo dadkan u ayaan la yimaadaan mar labaad iyo saddexaad waxaan hambalyo u dirayaa xubnaha baarlamaanka dhammaantood sidoo kalena waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa gudoomiyaha cusub gudoomiye Cabdixakiin iyo dhammaan ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa doorashadaas inay noqoto doorasho lagu daydo dhammaan geeyiga Soomaaliyeed waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.